السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكن ودردر ميديا حنقصنا هاي هوت كدكالة رنتي فرحت وين يتهاي إن أن ما أنت لجوجو سياسي وين فرح علن غير كينيا رنتي فرحت وين يتهاي مدنة بارك الله إن أن كل مو مقالة نيروبي نيروبي ما دام ماضي ما دام اللجن أتهاي ورئيس وين معها ما دام اللجن كي أن ما أنت لجوجو وحفرحت إنه غطي إن أن كوجا عزوم دردر ميديا بارك الله وهران وحكوا يدينا يا مدن فرح وح أنت بدن تاي سياسي حقيقة كهذا أو مرة اللي بتابت على حقيقة أتاه مرك كينيا وكذا الصومالي أريد تحت وكذا شاب كينيا وكذا شاب مدة صدق سنة دي أن إنسان كبد نمبا سياسة كينيا وكجرتها وروح وصلنا قطعي كحجين كي أفيان كي برلمان وحتى نين أد سومالي ده أي أطاقرته ما دام كينيا تاه وحكاوي دينا يا همي يا مقرشاي ومكجرة إن أدل كان أدحلال كسر سره سوسو شرح بسيطة مذهبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأد صنطاي وأنا دكالة نيروبي دكالة حمر نوي خطأ وتلك دكالة حمر دكالة وقت الله سوي نيروبي دكالة بلاس نيروبي ما شاء الله ها وحان ربا إن نسكو شرحها إن شاء الله بإذن الله الباري حلقة مدحوينها كينيا 2027 إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. قرشاق وكجرتا. قرشاق وكجرتا. قرشاق ولقد وكجرتين أنا بستاجو حلقة أوسرية. هكذا بدن بعقلي. لكن هاتن قرشنا هذا صوت سعوته 2022 وحن متاجنا هي constituency الله هذا دام. إن شاء الله بإذن الله الباري أنا كوكوليستان إلهي كرجينا. إن شاء الله. 2027 مركز ساعة تنور لما هتم بدير كذب لوصل 16 سنة كذب كامبينكي والحمد لله بخباينا نستعمل الحبينها ودك كينيها أنا رجوي كقوة إن شاء الله بنقول يسمى الله كاس. وح أنت بدل موضوع ده وحول بحقوق الأذنها محكمة السرة وكالة أرمية وكذا شيء وح أنت صدق وكذا شيء أرمها الصومالية وح هل أرنكاوي دينا يا ما دام تهاي سياسي ربع داء maxay ka dhaxli karaan jiilka hadda jira horta waxa loo baahan yahay dadkeen visionary la ahaado oo aragtida RB Palace hotel weeye hagaagsan habsamo iyo adeeg hufnaan hadiignimo ay ku dheehan tahay hotel looga haray weeye RB Palace Hotel hormar iyo dhismo qurxoon jawi degan hurdo macaan hawo nadiif ah hunug iyo qaylo motorkiin ku huriyana habreer iyo hasalanaan hundurmeeda asrataho adafadaasa angmogatoy RB Palace Hotel shaqaaluhu funa on hagarsadana hadhawaayo ka macmiilka eedlanka tarbiyaya heegankiinka ee RB Palace Hotel berka kala beedki suurad lahaayay barigalka landiyaari berka kala restaurant raashin dhadhan itay nafaqo tubtee kafeterigana kabaaliyaala boos fadha suurad leh haasaawagana ka fayla hoolin la qurxiyay xaflado munaasabado seminaarahaana lanka tala galay baakin baabuurta meelandiyaari baylan an hayna RB Palace Hotel yaway bawsakiyale xaafadda holwadaag ee magaalada Baydhabo godob hang agaarka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed wadada via Bono ex via Bonkai ama wadadii hore ee Bonkai RB Palace Hotel loo fogeeyo والله isku dayo in 10 sano 20 sano 20 sano 50 sano hore loo fiiriyo meeshii la joogi doono sahana la sameeyo oo loo xisaabtamo sida ummadda intii looga qaado point A loo gaarsiiyo point B point C ducaankaas oo kale daba yeesho laba shay bay taa ka dhalanaysaa maskax aqoon fiican leh oo saliim ah oo aanan qabin culaysya ay ka mid tahay jeclaysi qabiil waxyaabahaas maxay ahayd hunguri hanti jecayl waxyaabahaas oo kale madaxtinimo iyo hanti jecayl isku meel ma galaan waad fahantay soma isku meel ma galaan nin hanti raadsanaya haddaad aragto ninkaa madaxtinimo uma jeedo ninkaasayto waxaa weeyaan waa charlatan marka ingiriiska ay dhahaan hypocrisy ku ciyaaraya
ummadaan inuu gooyin rabo oo maaragtay mala habaabiyo ummaddaas inay meel gaarta ayaa noqonaya hamigaada adiga waxba inaadan ka dhaxlin adiga oo ku saabsan xagga hantida laakiin magac iyo sharaf iyo isbeddel dhacay inaad ka dhaxasho wasimaan fahmi sidii maalan ninkii uu ahaan jiray prime minister waddanka la Singapore Lee Kuan Yew Lee Kuan Yew waddankiisa wuxuu ka qaaday adduunka afraad adduunka saddexaad maaha adduunka afraad buu 62 ka qaaday markuu ka dhimanayayna 2015 uu dhimanayay adduunka koowaad waddanka ugu GDP sarayso ah marka ummaddan inay nolosheeda meel ay gaarto xisaabtankeeda meel fog gaaro hamiga uu dheeraado hanka uu fogaado cabsina aanan jirin oo adiga oo maaragtay nafta inta hoose ay kaa soo dhammaatay haddii aad rabto ummadaadi aad ka dhalato islaamka ehed oo la dhibahayo meehe ummaddii aad ku dhex nooleed oo islaam iyo diimaha kaleba ay kamid yihiin inaad maaragtay mar kastaba adiga xaqa aad ku tahay hataa loo baahanya iyo sharafta waxaa weeyaan danta guud oo ummaddaasiito aad matalaysa ay u baahan yihiin waad fahamtay sooma anu horta Kenya baan ahay qarankayga waa Kenya qarankayga Soomaaliya maaha markay Soomaalida oranayso faarax waxaan ku jeclahay Soomaalinimadiisa anu Soomaali qowmiyad iyo qabiilkayga baan ka ahay laakiin qarankayga waa Kenya laakiin waxa weeyaan jiilkiis lahaye jiradka kama qoslaadaya marka dadkii kula dhashay inay nolol fiican ku noolaadaan oo wax alla wixii dhibaato iyo mu'amaraad iyo xisaabtan xun iyo khaladaadka lagula dhaqan hayo oo dhanba meeshay ka baxaan dan baa noogu jirta anaga سؤال فانتي سما marka qofka ku xisaabtamayo ninka Soomaaliga oo Kenya qaranka Kenya ka tirsan mise ninka Soomaaliga oo qaranka Ethiopia ka tirsan in uu ma aragtay ka qabi karo fikrad aan ahayn saliim xamar mise hargeysa ka qabi karo oo jumhuriyadda Soomaaliya oo fikrad khaldan mise fikrad aan dano haasayto tixgelinaysa aan ahayn ku xisaabtamayo waa nin ku xisaabtamay ingiriiska iyo mareykanka inay xiriir xun ay yeelan karaan ma yeelan karaan wasku bad waa laba qaran bay kaliya tan afgris baa laga hadlaa tan afgris baa laga hadlaa ingiriiska ma on mareykanka iyo Canada iyo Australia New Zealand وحصل ربع سنة بقى تدكيس بقى وهاجر حاجة دقي وهذا كنا هذا نحكم كه نينك الصومالي جو إثيوبيا كنا بحرنا ينو كهم يسوع جارو ينو نقطة برايم مينستر إثيوبيا هنا ينو نان قوميد وعود درون ما كان نقطة حاجة تعليمته ما كان نقطة حاجة تجارة ما كان نقطة حاجة مملكة الدولة وميلتري بوليستي مالك صار بيكجران ما ذكر سما ووزارة يكجران سياستنا إيه كم مقدار ويحب وقد رح مقدار ما فهم صح سيس الله بدنا الصومالي كي يجون يجينا نصار لنا بوغنا ما ذكر سما مركز دم بين نقطة أنه أنت وصار لنا بوغنا كوانا صومالي أنا حمر مئية يريد الصومالي أنا هناك أنا ما أردت يجينا أنا جعلنا integration للسمية سياسة هي الاسكوب كي حقيقة نقالها يكون بيحكي ستورنا سعود كدقائق dadka isku afkay aan la kala reebin oo xamarkii imaado Nairobi ma kara Nairobi ka tagi karo Addis Ababa tagi karo Djibouti oo la mid idana oo qaran Soomaali qowmiyadda Soomaaliya ka ay batasho laakiin qaran gooniya inta waxa weeyaan dadkii hore waxay ku xisaabtami jireen maadaama siyaasad xun oo khariban oo dabagedisan oo negative oo reer galbeed ay ka shaqeeyeen ee Kenya xorriyadda markay qaadatay Ethiopia xorriyadda markay qaadatay oo ka dhaadhacsaneed intay Soomaaliya burburkeeda uu mustamir noqonay ya anagana dan noogu jirta marka dambana ha la qaybsadaba nusra Kenya ha qaadato nusra Ethiopia ha qaadato saasay maamuladoodii qabiilna lagu mashquuliyo liidad reebel way socotaaba hadda Soomaaliya wax buqbuuq iyo waxa ka socdo hadda Soomaaliya maxaa kula talinaysa maadaama doorashadii xilligii doorashada joogo madaxda Soomaalida maxaa kula talinaysa wallahi Soomaaliya madaxdeeda inay doorasho xalaal ay sameeyaan oo saliim ah maamul goboleedyada inay maanta lagu adeeganayo oo nin kasta ku adeeganayo
dowladaha maaragtay jiraanka Djibouti Kenya laga maamulahay inay ka baxaan qarankooda ay ku tashadaan way fahamtay soo imaaraadka iyo carabtana iyaguna kaarta ku dhacday iimaanka alla ka qaaday oo ka dhaadhacsan Soomaaliya intay isku maqan tahay yaa shidaalkiina idinkana aad suuq monopoly adduunka uga helaysaan iyo gaaskiina iyagana waa in maaragtay laga tashado way fahamtay soo oo marka sidaa iyada ay Soomaaliya isbedelkeedana u dhacay shidaalkooda soo saarta بعد الشغال هذا كنت صراحة كنت بيشتغل معنا ما يرضى حتى لو بهنا سوسنا لكن قدامها خليج السعودية إماراتية مع القطر كهذا إماراتي مودي أنا ولا قضيت هاي أنا وجعشة ويكون جرا عندك كاسو لما اللي صار صار مرة ما قاس كي تدور الصومالية هذا السوق يجي حيستان يكيا بين لا قبصة وبيعوا هصول له كنت صراحة كنت مرة شغال القيمة ما يرضى شغال حدو قيمة ليه حدو قيمة ليه شغال الصومالي سياسة قلت لنا الصومالي وحنا قلت لنا شيء يدينك shidaalkiina soo saarta loola shiinay dhaqaalaha waddankeena ku jira meel adduunka ku jira malaha macdanta waddankeena ku jirta meel adduunka ku jirta malaha intaad aragtaan baad ma aragtay wax idna lamid adduunka aan la helin laakiin hadda wax yar lagu siyaa lagu oranayaa meesha qalalaasa ka samee sifaada u soo saaray waxaad $1 milyan baa meelaha lagu laabishay maamul goboleed haya nin shakhsiga dowladda federaalka shaqeeya haya ku kale oo siyaasi buuqaasaa la rabaa iyo dagaalkaasiito iyo xarb ahliga inay sii dheeraato war hooy حرب أهلي قالوا يصيراني ودكينا دجية شرفتينا يا شباب نورل ودكينا كتير أمريكا هو كسرنا نكستو سمايل هذا الحرب هاي كندا أقوله أمريكا أقوله نيوزيلندا أقوله أنا إذا تسيا هذا إني عقل كشغل سيسان كواصلنا ورباني ودكينا ما أشوف وصلت طار أمريكا وصلت دورهم إنجليز وصلت دورهم كندا وصلت دورهم عرب سعوديين تي مال كستو الدنيا أنا ودكينا كشغل سيسان دي آد أسوس سمرتان خيرات كنا الله سبحانه aad iyo aad ayuu umahadsan yahay kaas wuxuu ahaa siyaasiga weyn ee Kenya Farax Macalin sharaf gaar ah inaan kula kulmo خير الله hotelka Dikale Plaza Nairobi Kenya خير الله